sida uu si kala baahantiin 400 qoys haddaydan gaadho haddaanaydan gaadhnayna ka fuureeyaan inta si liidata sida aad maanta noogu soo baxdeen ee aad noogu timaadeen ee noo gargaarsan mar walba noo gargaara وين فريسين لهاي أنا بانو يدي قلقالي لهاي حوران وأدونك بأنا قد ماضي muuqaaladani waa goobaha ay ku sugan yihiin dadkii ay saamaysay abaartii darnayd ee ku dhufatay gobolada bariga Soomaaliland waxaanay bulsho tiro badan isugu yimaadeen xerooyin iyo kaaman ku yaala deegaanada Guumays Ari Cadeeye Dharkengeeyo iyo sidoo kale Saaxdheer kadib markii ay ka baxeen xoolihii wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland Maxamed Ibrahim Aadan Qabyo tiri wasiirka dib u dejinta Cali Saciid Reegal iyo sidoo kale hay'adda ARC ayaa deeq ballaaran oo isugu jirta raashin iyo biyo gaarsiiyay dadka tabaalaysan ee ku dhaqan xerooyinkaasi waxoogaa sida la sheegay waxoogaa raashinaan sidnaan badnayn waxaanu jecelahay inay soo ina sida uu si kala baahantiin 400 qoys haddaydan gaadho haddaanaydan gaadhin inaad ka fuureeyaan inta si liidata si fiican u qaybsataan ma kaamkan oo kaliya aad bay barakacayaashu badan yihiin waanu intaanu soo soconayba waa arkaynay tuulooyinka ama degmooyinka inay ag yaalaan kulli way adkaanaysa sida gacmo idin soo wada gaadhaan laakiin maalinba in baa soo horeynaysa hay'adaana waxaanu kula talinaynaa maaha ARC oo kaliya inay ku daydaan oo ay kala qayb qaataan gobolada bari hay'adaha halkan fariin baan u marinayaa dhammaan wixii hoos yimaadey hay'adaha 220 UN taaba jooga international NGOs baa jooga inay ka qayb qaataan baahiyaha jira waxaad ogaateen horta inaynu daalay dhaqaaliina yaraaday wax la hagranayaana aanay jirin dawladda iyo hay'adaha dalka ku sugan dhammaantoodba ilaa 4 sanadood abaar bay ku jireen sidii looga sabata bixin lahaa dadka duruufo badan oo adag baynu soo maray wax walbana ilaahay baa qadaray waynu soo ka bixi doonaa haddii ilaahaydna cuntaas waxay dhantahay 400 cunto loogu talagalay 400 oo qoys inay hal bil ku noolaadaan oo ka kooban bariis sonkor daqiiq caano boore iyo saliid manaha markii ugu horeysay ee hay'adda ARC ay cunto ka qaybiso gobolkan Sool qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanka Guumays ee gobolka Sool ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay wasiirada xukuumadda iyo sidoo kale hay'adda ARC ee soo gaarsiiyay deeqdan sida aad maanta noogu soo baxdeen ee aad noogu timaadeen ee noo gargaarsan mar walba noo gargaara إله بقرقار لي إلهي بمهد لي الحمد لله وين سوريين لهي وين فريسين لهي أنا بانو يدي قلقالي لهي حوران وأدونك بأنا قد ماضي يا تاجنيس كمين ورسنين تاجنيس كمين ورسنين مركا عين وكلا درينا هلب ضرب در حديق لهي أدونك بعد ماضي الحمد لله halkan waa barakaca Guumayseed waxeerada ugu weyn baan u maranayaa gobolka Sool inay tahay dadkaasi waxay u baahan yihiin wixii qof nool oo bilaaadani u baahan yahay waxaad noo sidaan iyo wixii waraba wadi ka dheeganaynaa wasiirro nagu culus baatihiin wasiirro gobolkan maxaan ku sheegay mas'uuliyad weyn u hayaatiin wasiirro aan wax badan wax qabad badan uga baranay baatihiin aad iyo aad bay maalin weyn noogu tahay aad iyo aad baan ugu faraxnay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada gobolka Sool ku soo dhawaada qaxoontiga gobolka Sool deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool ayaa ka mid ah goobaha ay cagta dhigeen wasiirada iyo sidoo kale hay'ado iyagoona sidoo kale gaarsiiyay deeq ballaaran oo biyo iyo baahda odayaasha deegaankan ayaa ka gudoomay wafdida iyagoona si weyn ugu mahadceliyay waxa la yiri ninba 10 caruur dhalay oo yar yar markaas islaanti ka dubta habeenay ka maqnay markaas caruurtu ku rafaado galabtii dambe iyadoo loo soo celiyay soo muuqata markaas caruurtii ka dhinac orday alla waa hooyadeen waranagiyo barakacayaasha islaamu waxaan ku jirnaa alla waa dawladeeni siinta qorsheynta iyo hay'adu ay noo keeneen waanu gudoomin kii horena sidii aad noo abarteen baan u qaadanay anshiidna waanu ka martigelinay
kana dacanshiid waa walaalahayo. Cabdiwaxid Cabdiraxmaan wasiir dowlaha wasaaradda beeraha Somaliland wasiirkii hore ee biyaha Somaliland Baasha Cali Jaamac gudoomiyaha gobolka Sool ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay wafdidan iyaguna sheegay in xukuumaddu ay dadaal xooggan ugu jirto taakulaynta dadka xooluhu ka baxeen. waxaynu u baahannahay inaynu isku tashanno mas'uuliyiintan runtii aad iyo hay'adda waan ugu mahadnaqanaa kulli xukuumaddu waxba idinka hagaran mayso hay'aduna waxaynu ka helno insha Allah ta'ala wayna siin doonaan kulliba qoysaska tiradu way badan yihiin kuwii daalmaantina wata qaadan maayo kuwa kale unta hal siiyo wuxuuna way iska daba imanaya hadaa idinku isnidaamisaan oo isu naxariisataan cuntadii oo isku jirta bariis baasto sonkor daqiiq iyo saliid hay'adda ARC maaha markii ugu horeysay waxaa leenahay mudanayaal ku soo dhawaada gobolka Sool ku soo dhawaada magaalada Arcadeeye aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa kulli Soomaalida waxa ku maamulada cagaboor la warramay idinkaas oo idinka warrami doona insha Allah ta'ala wasiirka qorsheynta qaranka Somaliland Maxamed Ibrahim Aadan Qabyatire iyo sidoo kale wasiirka dibadejinta Somaliland Cali Saciid Reegal oo hadalka iska daba qaatay ayaa iyaguna geestooda tilmaamay degmooyinka sidii loo kala itaal daran laga soo bilaabo Guumays Arcadeeye dharkeenga ila Saaxdheer inaanu gaarsiino waa bilow waa istaba socdaa insha Allah biidnillah wixii kalena way iman doonaan ka qorsheyn ahaan inaanu abaarta u dhabaraadayno barnaamij weyn baa noogu jira waxa naga caawin doona kulay xukuumadda wixii bajadan u hayno dawladaha caalamkuna dad badan oo noo ballan qaaday baa jira waa dhawaan marka sanadka cusub wax fara badan baa isbedeli doona laakiin idinkuna ku ka faa'iideysan noqday waa wax Ilaahay keenay marka hore waa in la ogaadaa oo hadii wuxuu sida la doonayo noqon waayaan ama waxa la keenay inagu filan waayaan ama dadka wada gaari waayaan dawladuna waxba ma hakran hay'aduna waxba ma hakran laakiin awoodda inta leeg waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Germany Star TV deegaanka Arcadeeye ee gobolka Sool.